nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaa suuqa madiina isagoo maraya nin wuxuu arkay awr iibinaya markaasuu nabigu yidhi awrka maad iibinaysaa haa imise inta way heshiiyeen markaabuu nabigu ku yidhi soo raac awrka lacagtiisii baan ku siinaya waa nin reer baadiya ma garanaya nabiga sal alla alay slam magaalada madiina wuxuu u soo galay awrka inuu iibiyo hoggaankii buu hayaa rasuulku daba socdaa markaabuu nabigu degdegay maadaamuu nabigu xaq lagu leeyahay wuxuu doonayaa inuu ninkan hore lacagtiisa u siiyo ninkii reer baadiyana aayar buu u socdaa maadaamuu safar ka soo galuu soo daalay aayar buu u socdaa uu daba bildhaansanayaa markaabuu nabigu soo daymooda wuxuu arkay ninkii oo nin kale la taaganoo awrkii ka iibinaya markaabuu nabigu soo noqday wuxuu arkay ninkii oo lacag loo tirinayaba markaasuu nabigu ku yidhi war xaggee soonagii kala iibsanay ma ninkii reer baadiya yidhi gamaad iibsan markaabuu nabigu war waan heshiinay tama albayc qiimihiina waan ka wada hadallo waan isla afgarannay waxaad hadda iila socotay keliya inaan lacagtiisa ku soo siiyo markaasuu ninkii yidhi may igamaad iibsan markaabuu nabigu leey war waan kaa iibsaday muslimiintii reer madiina o dhan baa ku soo urmay waa la isku dhegaysanayaa acraabigii wuxuu leeyahay igamaad iibsan nebiguna waxa uu leeyahay war waan kaa iibsaday waan kaa gatay iyo igamaad gadan ninkii acraabigaa yidhi war inaad iga iibsatay markhaati ma haysataa markaabuu nebigu dadka sidaa u eegay khusaymata ibnu thaabit nin la yidhaah oo reer madiinaa soo boodo yidhi anaa markhaatiya buu yidhi inuu nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam uu iibsaday maaragtaane awrka inuu kaa iibsaday anaa maragga furaaya markaabuu nebigu sidaa u eegay khusayma yaa khusayma markaan ninkan kale iibsanaynay meesha maad joogine seed markhaatiga aniga aad iigu qaadaysaa markaasuu yidhi yaa rasuula allah warkii samada ilaahay kaaga soo dhiibay ee jibriil uu kuu keenay baan kaa rumayne ma bini aadamkan aad baan u sheegi buu yidhi ma bayciga addoonkan ina dhex maray baad been ka sheegi inaad ka iibsatay waxaan ku rumaystay tidhidda aad tidhi waan kaa iibsaday intaa baan ku sadaqay buu yidhi markaabuu nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi maanta laga bilaaba khusaymata ibnu thaabit saxaabiga la yidhaahdo maanta laga bilaabaa halka laba nin marag looga baahan yahay isaga keligii baa ku filan buu rasuulku yidhi markiiba nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu siiyey shahaado ayuu siiyey shahaadatu khusayma tacdilu bishahaadati rajulayn laba nin halka marag looga baahan yahay khusayme keligii baa ku filan buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam leanna saxaabadu waxay garanayaan nebi maxamed qadarkiisa mar haddii ay maqlaan ilaahay baa sidaa yidhi oo nebi maxamed baa sidaa yidhi boqolkii boqol